halka warkaas idinka imanaya waa TV-ga Samsad studio magaalada Muqdisho waxa wali si xoogaysanaya rabshadaha ay iskaga hor imanayaan ciidamada ammaanka dalka Masar iyo sidoo kale taageerayaasha ururka Ikhwaanul Muslimiin iyadoo la sheegay in ilaa 36 qof ay ku geeriyoodeen rabshadii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Qaahira iyo sidoo kale qaar ka mid ah magaalooyinka dalkaasi Intisaar Zala Hussein oo la socotay xaaladii u dambeeyay dalkaasi Masar ayaa warbixintan inooga diyaarisay ugu yaraan 36 ruux oo taageersanaa madaxweynihii xilka laga qaaday ee Maxamed Mursi ayaa lagu dilay xabsi ku yaala dalkaasi Masar wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka bixisay warar iskhilaafsan dilka 36 ruux iyadoo sheegtay in dadkani la dilay iyagoo sameynayay isku day ah inay ka baxsadaan gacanta ciidamada ammaanka markii horeysana waxa ay wasaaraddu sheegtay in rakubaysan ay soo weerareen xabsiga saacado kadib ayaa haddana waxa ay wasaaraddu sheegtay in dadkaasi ay ku dhinteen sunta dadka ka ilmeysiisa oo lagu riday markii ay afduub ahaan u qabsadeen mid ka mid ah askartii u sagootineysay xabsiga loo waday taliyaha ciidamada dalkaasi Masar General Abdifitaax Al-Sisi ayaa horay digniin u jeediyay taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Maxamed Mursi waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin rabshadaha ay wadaan Al-Sisi ayaa sidoo kale sheegay in Masar ay meel uga banaan tahay dadka oo dhan danka kale dawladda Sacuudiga ayaa uga digtay reer galbeedka inay culays saaraan hogaamiyaasha militariga ee dalkaasi oo ay sheegeen inay la dagaalamayaan kooxaha argagixisada dilkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo midowga Yurub laga filayo in maanta uu go'aan ka soo saaro qalalaasaha ka jira dalkaasi Masar waxaana la filayaa inay go'aan ka soo saaraan in kaalmada dhaqaale ee midowga Yurub uu siiyo Masar in la dhimi doono iyo in kale Intisaar Saalax Samsad magaalada